بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Bio Academy. kusoo dhawaada Bio Academy. waa page-keeni waa meesha aan ku lahaynay YouTube-ka iyo Facebook-ka idigu soo gudbin jirnay maadooyinka scientific-ga afarta fasalada dugsiga sare. page-ka la share gareeyo, like iyo share-ta lagu qabto. insha Allah taala maanta waxaan soo gudbin doonaa casharkii lixaad ee biology-ga. asal socod wanaagsan wali waxaan ku jirnaa chapter-keeni koobaad. insha Allah casharkeena maanta wuxuu ka bilaaban doonaa healthy problems of nervous system. healthy problems dhibaatooyinka caafimaad nervous system ay ka yimaada ama ka dhasha habdhiska dareenwadka. insha Allah waa soo koobi doonaa kan ugu horeeya ama waa cudurka koobaad ee habdhiska dareenwadka ka dhasha ama ka yimaada wuxuu noqonayaa dementia oo ah waalida, Alzheimer disease oo ah sigana nooc ka mid ah waalida oo ku dhaca dadka wadamada Yurubta ku nool, iyo bacterial meningitis oo ah bakteeriyada waxyeeleysa xuubka maskaxda. saddexdaas ayaa ugu waaweyn mid ayaa dul istaagi doonaa hadii la yiraahdo. dementia aan ku bilaabanaa. is caused by waxaa sababa progressive irreversible degeneration oo ah horumar aan dib loo celin karin kaasoo burbur ku dhaca central ama cerebral cortex oo ah maskaxda qaybteeda sare. and result wuxuuna ka dhashaa ama uu keenaa mental deterioration oo ah isku dhacyaha maskaxeed usually badanaa over several years taasoo qaadata muddo badan. there is gradual impairment waxaa jira lumid tartiib ah oo lumaya memory maskaxda, especially khaasatan short time waqti gaaban ama short term waqti gaaban. okay, waxaa kaloo kumid ah intact oo ah caqliga maskaxda qofka inuu lunto, reasoning sababeyntii ama qofka inuu wax sababeeyo ama sabab la yimaado kale inay baabado. but laakiin consciousness waxaa yiri mirku is not effective ma waxyeeloobin, laakiin qofka inuu fikiro thinking la yimaado, reason la yimaado, intellect maskaxaan qofka inuu u fikiro ayaa halka ka baxayso, laakiin wali mirkiisa uu jooga wali saameyn kuma yeelan. emotional lability waxaa imaanaysa ama ka dhalanaysa waxa lagu magacaabo awood la'aan dhanka dareenka. and personality change iyo qofka inuu isku bedelo shakhsi ahaan isku bedelo may also occur way keeni kartaa ama way dhici kartaa. okay, number 2 Alzheimer disease. this condition xaaladan is a commonest form waa nooca ugu caansan ama ugu weyn of the dementia waalida marka la yiraahdo. in developed country waxaa laga helaa wadamada horumarsan. the cause sababta of this disease cudurkan is unknown waa mid aan la aqoonin, although inkastoo genetic factor isra genetic ama waxyaaba dhaxal ah may be involved ee la ku yeelan karaan. it commonly waxaa la caadiyan affects waxay waxyeeleysaa people dadka with Down syndrome calaamada loo yaqaan Down syndrome ninka yaraw soo saar qaba by the age sanadka markuu jiraan ama sanadaha markay jiraan over ama sanadka markuu yahay dadka waaweyn, tusaale 40 jirka oo kale dadka 40 gaaro. there is a progressive atrophy of cerebral cortex waxaa jiro waxa lagu magacaabo horumar oo qaldan oo ku imaanaya waxa lagu magacaabo central cortex-ka accompanied by the deterioration of mental function taasoo keenayso in isku dhex yaaco maskax ahaan qofkii. dhimasho ayaa usually badanaa occurs ka dhacda ama ku timaada between inta u dhaxaysa 2 and 8 years after onset. inta u dhaxaysa 2 ilaa 8 sano ka bacdi ayaa laga yaabaa qofkii inuu dhinto marka cudurka darteed, laakiin inta ugu badan qofkaas wali waa waalidiisu ma ahan waali oo haya ma ahan macnaha waalidii weyneed ma laakiin waali waxa waa iska normal ah, laakiin qofkaas qof iyo ma ahan. inta ugu badan waxa yiri way ku dhintaan dadka markay 2 sano ilaa 3 sano ilaa 8 sano kadib. bacterial meningitis bakteeriyada waxyeeleysa maskaxda xuubka maskaxda. the term meningitis waxaa yiri ereyga meningitis usually badan referred to waxa lagu qeexaa inflammation caabuq of the ku dhaca waxa la yiraahdo subarachnoid space-ka ama meesha loo yaqaano arachnoid. hore waxaan soo baranay maskaxda xuubka ay leedahay saddex hayeen dura mater, pia mater iyo arachnoid layer ama arachnoid mater. arachnoid marka waa space-ka u dhaxeeya dura mater iyo pia mater. marka inflammation ama caabuq ayaa ku dhalanaya space-ka u dhaxeeya pia mater iyo dura mater oo loo yaqaano arachnoid mater loo yaqaano.
and is most commonly badana waxaa la transmitted through contact waxayna u gudubtaa taabashada iyo gudubtaa with infected individual qof qaba hadaa marka cudurkaas ama bacteria aad qabatid ama aad salaantid way ku soo gudbaysaa. Bacterial meningitis is usually badana procedure way ku hormartaa by the middle upper respiratory tract habdhiska neef mareenka ee qaybta sare ee dhexda ayay ku hormartaa during inta loo guda jiro with a few bacteria taasoo bacteria yar inta ay galayso the blood stream qulqulka dhiiga and carried waa mid xambaarsan meningitis waxaa yiraahdaa xanuunka ay xambaarsan tahay caabuqa ay xambaarsan tahay. Common microbes marka way ilmaratada ugu caansan include waxaa kamid ah Haemophilus influenza ayaa kamid ah bacteria la yiraahdo oo ku dhacda injil dareen caruurta bidin u dhaxaysa ages 2 ilaa 5 years caruurta jirta 2 ilaa 5 sano ayay ku dhacda Haemophilus influenza. Lambar 2 waxaa kaloo kamid ah Malaria Neisseria meningitis bacteria loo yaqaano taasoo inta badan ku dhacda 5 sano dadka ka weyn ilaa 30 sano ay u dhaxaysa dadka u dhaxeeya 5 sano ilaa 30 sano u dhaxeeya ayay ku dhacdaa most common caani ku tamar. Streptococcus phenomena waa bacteria magaceed waxay ku dhacdaa bacteriadan inta ugu badan ama dadka da'dooda ay ka weyn tahay 30 sano ay ka weyn tahay mar. Okay, Haemophilus waxaan dhahnay waxay ku dhacdaa dadka da'doodu 2 ilaa 5 ay u dhaxayso. Neisseria waxay ku dhacdaa iyadana 5 ilaa 30 sano dadka da'dooda u dhaxayso. tan ugu dambayso Streptococcus phenomena loo yaqaan dadka ka weyn 30 sano ayay ku dhacdaa. Other pathogenic bacteria kale cudur dhaliya ah can also cause way sababi kartaa meningitis cudurkan loo yaqaan meningitis ee maskaxda ku dhacaya sababi kartaa. Example tusaale those cause sababa tuberculosis tibishada and syphilis iyo waraabowga ayaa kamid ah. Meningitis waxaa la yiri caabuqan ama maskaxdan cudurka ku dhaca can also affect wuxuu yeelan karaa the dura mater lakabka sare especially qaasatan when spread marka uu faafayo is directed through waa mid si toos u gudbaya compound skull fracture markii lafta madaxa ay jabto as lesion taasoo soo daadinayso cerebrospinal fluid markii qofka madaxa laftiisu ay jabto ama ay dakramo laga yaabaa inay u gudubto marka dhacankan loo yaqaan cerebrospinal fluid loo soo gaabi CSF loo soo gaabi. And the blood waxaa la dhiiga from ka imaanaya site dhinaca also provides uu bixiya a root waxaa la xidid of entire microbes taasoo ay kusoo galaan ama root wada ayuu bixiyaa taasoo waxyaabaha ilmaratada ay kusoo galaan marka maskaxda ay kusoo galaan ama ay ugu soo gudbaan maskaxda ay ugu soo gudbaan. Okay, intaas waxaan ku bixinaa caqabadaha ka dhasha ama cudurrada ku dhasha ama ka yimaada habdhiska dareemadka. ciwaankana wuxuu noqonayaa sensory organs xubnaha ku dareemayaasha ay noogu horeeyaan taste and smell oo ah taabashada iyo urinta. Specialized neuron oo dareena khaas ah in your body jirkaada ku jira kuwaas lagu magacaabo sensory receptors dareen qabtayaal enable you ku ogolaanaya to test in dhamisid smell urusid hear maqashid see aragtid and touch taabatid. And to detect emotion shadow ogaatid waxaa la yiraahdaa socodka and temperature iyo heerkulka. The senses dareenka of taste taabashada and smell iyo urka stimulated waxaa kiciya by the kiimikooyin and often function together si wada jir ay wada shaqeeyaan. Specialized receptors qabtayaal gooniya located kuwaas ku yaalo high in the nose sanka qaybtiisa sare respond ayaa ka jawaabaya to kiimikooyinkaas in the air hawada and send waxayna dirayaan information warbixin to the olfactory bulbs oo ah qaybta guluubka ee dareenka ama neerfaha qaada urka qaada oo leeyahay in the brain kaasoo maskaxda ku yaala. Taste bodies kuuska waxaa yiraahdaa dhadhanka ee carabka ku yaala the area waa barta ama waa meesha of specialized chemical receptors ee khaas u yihiin qabtayaasha kiimikaaleed on the tongue kuwaas carabka ku yaala. Detectors kuwaas oo ogaada the taste dhadhanka of sweet ee macaanka sour waxaa la yiraahdaa dhanaanka salinity dhanaanka zaidka cusbada ah iyo bitter iyo qaraarka inta way ogaadaan. Okay, these receptors qabtayaasha detective ku ogaada different combinations gain kala duwan of kiimikooyin the food cunada ku jira and send wayna diraan this information warbixintan to another part qaybta kale of the brain maskaxda. The receptors qabtayaasha associated with waa kuwa la xiriira taste dhadhanka and smell iyo urka ay la xiriiraan. aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. casharkeena lixaad halkaas oo nagu ogyahay.
wabillahi tawfiiq.